السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاطمة علي كأي حفصة مصنوح وإذن سلاميسة. ما أنت التاريخ دوالح بشي سقالات لحديدي لو ذا كن إيه سقالي طبنك وما ننجي معاه آدي وحد مدى جمعياش إنان أنو آدي آن جمعياش هدي إلهي قدين روي هاي آن إذن صوب بوقضو ما أقانا سببتا إلهي أمركي سببتا إذي سانتا إذي جمعاها كلمان وإذن سلامة يا كل جينو دن أمد الصوماليات كحرن جنالكي يوتيوب كأن كل يحي waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaantaasu ilaahay yiri taxiyatan mubaarakatan min cindillaah, waa salaan ilaahay subxaanahu watacaala barakaysan. taxiyatan waa salaam mubaarakatan barakaysan oo min cindillaah ilaahay xaggiisa ka ahaatay. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay isku salaama ama ku faafiya dhexdiina way idin sheegaa shay aad isku jeclaanaysaan nafshu salaama baynakum dhexdiina salaanta ku faafiya. marka salaantaas ayaa idinku salaamayaa. salaan kadib waxaa idin rajeynayaa meel walba adduunka aad kaga nooshihiin iyo marxalad kastoo aad ku jirtaan inuu ilaahay idin hagaajiyo, inaa caafimaad qabtaan, inaa barwaaqaysan tihiin, inaa fiican tihiin. annaga alxamdulilaahi rabbilcaalamiin subax jimcaad bay noo tahay. asbaxnaa calaa khayr baan ku idinku hala asbaxtum calaa khayr makuwaa bariisateen. inta haddaan salaanta uga soo tago waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo maxaa la dhihi jiray sababta dumarku aysan saaxiibka waaro u lahayn. dumarku waxaa la yiri saaxiib geed weynaa ka dambaysa. waayo sababtu maxay tahay? sababtu waxay tahay labada qof ee saaxiibka ah ama labada dumarka ee gabdhood ee saaxiibka ah waxa weeyaan 100% haday mid tahay ay maaragtay daacad u tahay, ay loyal u tahay, ay saaxiibadeeda u tahay qof wanaagsan, waxaa laga yaabaa tan kale 50% xataa inaysan ahayn, iska daa 20% aysan ahayn. markay tii kale ay ogaato inay saaxiibadeeda ee loyalka u ahayd 100% u ahayd dhiigeeda dhalada ugu shubaysay ay sidaa tahay macnaha opposite of 4 ay tahay, marka meesha waxaa ka imaanaya iyadiina 90 inay isbedesho 360 degree centigrade inay isbedesho ay dhinacii wanaaga ma ahna dhinacii xumaanta ka soo jeedsato. marka waxaan ku leeyahay haddii aad leedahay qof saaxiib ah ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaado, qofkaas uu yahay qof daacad ku ah, qofku wanaajiya. wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka sallallahu alayhi wasallam man laa yashkuri naasa laa yashkuri illah. qofka aan addoommada ilaahay ku xamdin ama aan u mahad celin ilaahayna uma mahad celiyo. qof hadduu wanaag kuu sameeyo ha ugu yaraato galaas biyo cad oo kaa waraabiyo waa loo mahad celiyaa, waa la sharfaa, waa loo abaalgudaa. laakiin bilcagsi of that laguma sameeyo intaas in oppositekeeda ah. inaa qofkii maaragtay dhibaato u geysatid, inaa qofkii sumcadiisa ku ciyaartid, inaa qofkii magaciisa ku ciyaartid. sister adiga haddaad aniga i caysid ka soo qaad example, haddaad caysid gabadhi saaxiibadaa ahaa oo shalay markaad suuqa maraysay qof walba isku kiin arkayay, haddaad cayso do you think ina adiga amaanan tahay? I don't think so. waxay Soomaalidu dhahdaa qofka barashadiisa rabtid saaxiibkiisa la fiirshaa. marka dad badan ayaa already haddii aad adiga isleedahay gabadhan sumcadda uga ciyaar, dad badan ayaa already adiga ku arkay qofka waxa ay sheegaysa iyadu ah. waxaa fiican qofka gabadha muslimadda walaasheed ah ama qofka saaxiibka kula ah, rag iyo dumar wuxuu doonuu noqon karaa. inkastoo usually aniga ragga saaxiibtinimadooda aanan jeclayn, haddana way dhici kartaa inuu qof raga ah uu saaxiib kula noqdo, friend kula noqdo. marka qofka walaalka ah ee ku wanaagsan ha wada moodsanin. waxa weeyaan qofka kharaarkiisa u tagaysa. waxaa fiican qofka walaalka hadduu ku macaan yahay inaad tartiibsatid, inaad qofka walaalka wanaaga uu ku sameeyo wanaag la mid u samaysid. laakiin haddii aad meeshu wanaag kaaga sameeyo xumaan ugu bedeshid, haddaad magacyo u bixisid, haddaad dhibaato u geysatid
ogowa yooma min al ayaam qofka bini aadanka intuu dul qaadan karo waa in yar qofku intuu dul qaadan karo waa in yar qofka ugu dulqaadka badan sanad 2 3 4 5 6 marka ogow dib adiga isugu noqo teeda kale Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ka fiicna kuma aaye ka xuma ku aaye gabaray inta gabar kale caayis oo leedahay heblaay waa kan heblaay waa kare heblaay waa kus oo shalay adiga aad la socotay oo saaxiib la ahayd inta caayis walaal macaan adigu dib ma isugu noqotay oo naftaada ma fiirisay meelaha aad tahay weak points kaaga ma fiirisay waxa laga yaabaa gabadha caayis inay ka aqoon badan tahay inay ka diin badan tahay ee diinta kaaga aqoon badan tahay oo maslaxada adduunka kaaga aqoon badan tahay adeegii oo aan laga yaabo inaad warqad lagu soo diray inta furto akhrisan karin oo fahmi karin wixii ku qornaa telefoon inta wacatid aan balan samaysan karin oo dhigi karin heblaaye hebel waaye balantaasaan rabaa ilmo ka xanuunsaday aan balan u samaysan karin ba haddana waxa wax ka sheegaysaa gabar laga yaabo intaasba inay samaysan karto inay maxaa la dhihi jiray qof wax soo baratay tahay iskuul soo dhamaysay college soo qaadatay maxaa la dhihi jiray aqoonta maadiga ka badisa diiniga ka badisa waxa waay walaalay macaan inta gabadha wax ka sheegaysid oo ku mashquulsan tahay wax ka sheegeeda aniga waxa iga tala ah ESL ina aado inaad danaha ku mashquusho inaad horta marka hore ilaa waxa la yiri ka fiicna kuma caay ka xuma ku caay inta gabar walaasha caynaysid oo leedahay gabadhan waa kan waa keer waxa lagu qaata adiga oo dib inta isugu noqoto tiraado wareed naagtan inta ay haysataba anigu ma haysto naagtan warqadeeda qof uma baahna inuu u akhriyo war naagtan telefoon inuu qof u cubalan u sameeyo uma baahna war naagtan kitaabka quraanka meesha yarta ka soo roogi kartaa ka akhrisan kartaa marka adiga intaas sida ku gaari lahayd inaad falankeed qabatid bal markaad la simintid oo qofkaas la mid noqotid marka hadaad balcay oo wax ka sheeg waxaan leeyahay wax ka sheegay ayadu wax wanaagsan ma ahan anu ma dhahay am perfect 100% laakiin waxaan aaminsanahay qofka qof ku mashquula isaga ayaa dhibaato haysata uu meel u raadinaya dhibaato isaga haysata iyo kalsooni darro isaga haysata iyo xanuun isaga haya waxaan leeyahay walaal macaan haddii ilaahay xanuun ku haya ka caafiyo get medical help dhakhtarada tag jealousy-ga iyo xumaanta iyo waxaasoo dhan dawooyin baa laga siinayaa waxaan idin leeyahay gabdhow afkaaga qofku amaanin aniga bent idin ma sheegaa ma jecla afkan qofku amaana inaan ku aayo laakiin haddii laga fursan waayo waa dhacaysaa oo bini aadanku waxa waaye qof aad kabihiisa tolayso isagana kafantaada tolay hada maxaaba kalood ku samayn kartaa afka ku amaanta inaa ku aydo ku qasbantaa marka almuhiim waxa fiican inaynu reebano oo aynu macnaha wax isku la harno ana waxaan leeyahay gabar ka fiican ma jirto gabar ka qurux badan ma jirto qubayska badso yaa gabar ka qurux badan ma jirto qubayska badso maxaa la dhihi jiray inaad dhaashatana isku day oo doqonaha u sheegin waxaan leeyahay gabdhaha aynayo ayibna calaykum idaa facaltum cadeem idinka wax idinka liita malahan idinka gabar caynaysiin marka insha Allah intaasan kusoo gabagabeynayaa waa anigoo ah Xafsan Musanuux ee Faadimo Cali fiidiyogan qofna kuma socdo qofna ma aragtay kuma wajahna waa wax aniga maskaxdayda ka soo maaxday waa waxyaabaha wadciga jira marka waa idin salaamayaa jimcatu mubaarak khayr baa idin rajayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh